اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. aayaddaasi waxay ku taallaa fii suurati almaa'ida waxayna soo degtay xajat alwidaac fii yowmi carafa. ilaahay jalla wacalaa waxa uu aayaddaa leeyahay alyowma maanta ayaan akmaltu lakum diinakum, diintiinnii ayaan iniin dhammaystiray baa ilaahay yidhi. aayaddaasi diinta innakaa laynoogu talagalay. diinta ilaahay baa le diintan inninkaa iska leh, oo diintiinnii maanta ayaan iniin dhammaystirnay baa ilaahay yidhi. diintiinnii dadku waxyaabaha kale maanta ay sheegtaan, laakiin diinta ma sheegtaan. ilaahayna waxauna leeyahay mayo diintaad inninku leedihiin ee diinta sheegta. dadku maanta dhulkay sheegtaan, oo dhulka qaar waxay idhahdaan annakaa le, qaar waxay sheegtaan waxay ku tabceen adduunyada ay arkayaan bay sheegtaan. aqalkan anigaa le, gaadhigan anigaa le, ilmahan anigaa le, mehraddan anigaa le, dhulkan annakaa le. waxaasoo dhan ilaahay baa iska leh, adigu laakiin diintaad leedahay. wa atmamtu calaykum nicmatii, nicmadaydiina maantaan dushiinna ku taam yeelay baa ilaahay yidhi. nicmadaydiin, nicmat alislaam, nicmat alqur'aan, nicmat alaxkaam. diinta ilaahay marka uu sheeganaya nicmad buu ku sheegtay inay tahay, waayo diintu waa nicmad, adduunyaduna waa niqmad. diinta ilaahay nicmad ku sheegaa mar walba. dadka ilaahay dushooda uu nicmadda uu dhigayna markuu ka warramayay, ilaahay waxau lahaa addoommihii dushooda aan nicmaddaa dhignay baa ilaahay lahaa, in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu maalan libanii israa'iil. nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ilaahay markuu ka warramayay wuxuu lahaa ciisa bna maryam ma ahayn, hadduu ahaana wuxuu ahaa uun addoon buu ahaa, addoon aan dushiisa nicmad dhignay buu ahaa baa ilaahay yidhi. wajacalnaahu maalan libanii israa'iil, reer bani israa'iilna aan uga dhignay mathal ay ku daydaan. nebi ciise calayhi salaam addoon buu ahaa, sida ay nasaaradu ay sheegayaan ma ahayn. addoon buu ahaa, addoon ilaahay buu ahaa, rasuul buu ahaa ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala. markaasaa ilaahay leeyahay addoon dushiisa nicmad aan dhignay buu ahaa. nicmadda markay culimmadu ay sharxeen waxay idhaahdeen nicmadda uu ka warramayo ilaahay nicmadda adduunyada ma ahayna waa nicmadda diinta weeyaan. oo nebi ciise calayhi salaam adduunyada aqal uu galana ma lahayn, dhar xataa cawradiisa qariya oo aad u waaweyn oo fadfaadana ma sidan jirin baa layidhiye, in yaroo markaa cawradiisa uu ku asturo unbuu nebi ciise lahaa calayhi salaam. dhar badan oo innaku maanta sida aan dharka aan u leenahay, nebi ciise dhar tiro badanna ma lahayn, in yaroo cawradiisa uu ku asturo unbuu lahaa. adduunyadana nebi ciise aqal kuma lahayn baa layidhi. markii layidhi aqalkaadii mee, wuxuu idhi aqalkayga saqfigiisuna waa samada, gogashayduna wuxuu odhan jiray waa faraashkayguna waa dhulka. laba shay buu nebi ciise adduunka dusheeda ku lahaa bay culimmadu yidhaahdeen: barkin uu barkado iyo weel yaruu biyaha ku dhaansaduu ku cabbo ama uu ku maydho. labadaasuu nebi ciise wax adduunyaa uu ku lahaa. labadiina nebi ciise calayhi salaam wuu ka maarmay oo iska tuuray. waxauna kaga maarmay markuu arkay nin reer miya oo sacabkiisa biyaha ku cabbaya kuna maydhanaya. markuu arkay ayuu dhi waalkani waa igu siyaado, deedna uu iska tuuray. haddana maalin kaluu arkay nin baadreer miya oo gacantiisa maaragtaanay ka dhigtay barkin oo barkaday. markuu arkay ayuu yidhi maaragtaanay barkintanna waa kugu siyaado, waa israafe. iyadiina uu iska tuuray. marka nicmadan ilaahay nebi ciise uu dushiisa dhigay ee qur-aanku uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen ma ahay nicmad adduunye ee nicmadda adduunyada nebi ciise sidaa culimmadu ay sheegeen buu ka ahaa. oo adduunka dusheeda aqal kuma lahayn, gogol maaragtaane uu ku seexdana ma lahayn, weelal uu cuntada ku cunana ma lahayn.
dhar uu ku babadishana ma lahayna in yaroo cawradiisa uu ku asturo uunbuu lahaa nebi ciise calayhi salaam. laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen waa nicmadda maaragtaane nicmatulhidaaya. ilaahay baa hanuuniyey, ilaahay baa islaamnimada ku deeqay, shareecad la yidhaahda injiil baa ilaahay u soo dhiibay, nebi rasuula ayaa ilaahay ka yeelay. bal shanta nebi ee nebiyada ugu qiimaha badan leh ululcasmi la yidhaah qur-aanku sida gaarka uga warramay ayuu nebi ciise ka mid ahaa calayhi salaam. qur-aankana meelo fara badan baa ilaahay ku sheegay nebiga magiciisa iyo taariikhdiisaba. marka innakana ilaahay baa inagu leh alyowma akmaltu lakum diinakum, maanta ayaan diintiinnii ininka inii dhammaystiray, wa atmamtu calaykum nicmatii, nicmadaydiina maanta ayaan dushiinna ku taam yeelay, waradiitu lakum lislaama diina, diinta islaamkana baa ilaahay aniga raalli inigala noqdo inii doortay baa ilaahay nagu yidhi. aayaddaasi markaa xajatalwadaac bay soo degtay. markii nin yahuudiya ayaa cumar bnu khataab ku yidhi aayaddaa maanta dushiinna ku soo degtay haddii annaka noo soo degi lahayd maalintaasi ciid iyo farxad baan ka dhigan lahayn. deedna cumar bnu khataab radiallaahu canhu markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam. deedna markaa buu nebigu yidhi oo sow ciidul adxa soo ma ahayn buu nebigu yidhi. ciidul adxa labada ciidood ee muslimiintu ay leeyihiin inay farxaan loo jideeyey waa ciidul adxa iyo ciidulfitri. ciidulfitrina waa tii ramadaanka ka dambaysay kowda shawaal ahayd. ciidul adxana waa ciidda carafo weeyaan. labadaa ciidood muslimiintu maxay ku farxaan baa layidhi waxay ku farxaan ciidda soonkana waxaa lagu farxaa soonkii aad maalinkiina aad soo dhammaystirtay, qiyaamolaylkiiyo taraawiixdiina ilaahay uu ku dhammaystiray ayaa farxaddeeda lagu farxayoo loo ciidaabay culimmadu yidhaahdeen. soo ciidda ciidul adxana waxaa loo ciidayaa shareecadda iyo diinta maalintii nebigeenna la noogu dhammaystiray xajatalwadaac ayaa layidhi diintii baa laynii dhammaystiray ku farxa baa layidhi markaa maalintaas. marka diinta islaamka ilaahay baa ina siiyey iyadoo kaamila, waa diin dhammaystiran weeyaan. seeskeeguna waa arkaan alislaam iyo arkaan aliimaan. saqfigeega halka ugu sarraysana waa xusnul akhlaaq bay dhahdeen culammadu diinta islaamku. sees aqal walba marka la dhisaya sees buu leeyahay. seeska diinta islaamku waa arkaan alislaamka iyo arkaan aliimaanka. arkaan alislaam an tu'mina billaah, an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. أركان الإسلام كي أركان الإيمان كنا واللحويان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لحظة أركان الإيمان والتوحيد كشهادتينك بماركتان اللي وضع إضافين يا وضحوص إيمان يا موياني ركنك أساسك وحويان وإله جل وعلا إله إلا الرمي لا آمن ويان. نبى نبينا ويمد عليه الصلاة والسلام وحول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك. نبي الله دينتا إسلام كقول إقده adiga dabadaana cidanba aanan weydiinin. markaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi uma istaqim, waxaad tidhaahdaa ilaahay waan rumeeyey waan aaminay, deedna diinta islaamka ku toosnow buu nebigu yidhi istiqaamo ku yeelo. diinta islaamka ilaahay kuugu deeqay, aamin ilaahay kamaa huwa biasmaa'ihi wa sifaatihi jalla wacalaa. sida ilaahay jalla wacalaa uu xaqa u yeeshay in loo aamino u aamin. asmaada ilaahay aamin, sifaadka ilaahay ee asaligana aamin, sifaat allahi caza wajalla. ilaahayna mar walba ha ka fikirin daatadiise, waxaad ka fikirtaa khalqigiisa ilaahay ka fikir. laa tatafakkaruu fii daati illaahi baa nebigu yidhi, tatafakkaruu fii makhluuqaati illaah walaa tatafakkaruu fii daati illaahi fatahlakuu baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ha ka fikirina buu nebigu leeyahay ilaahay jalla wacalaa, laakiin waxaad ka fikiraysaan buu nebigu yidhi ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira. isweydiin ilaahay jalla wacalaa siduu u egyahay, tuu la egyahay.
taa ha ka fikirina buu nebigu yidhi. yaa abuuray, ayaa dhalay, halkuu ka yimiday, halkuu ka bilaamay, may ha isweydiin. taa haddaad ka fikirtaan buu nebigu leeyahy waad halaagsamaysaan. laakiin waxaad ka fikirtaan ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira. makhluuqa ilaahay abuuray ee horteenna socda eeg oo deedna ilaahay casa wajalla awooddiisa ka dhex arag. marka ilaahay aamin kamaa huwa biasmaa'ihi jalla wacalaa wa sifaatihi, sifaadkiisa ilaahay aamin. deedna umma istaqim, ilaahay markaad aaminto ee shareecaddiisa islaamkana aad aaminto ee shareecaddiisa islaamkana aad ku dhaqanto, waxaa laga rabaa diinta islaamka inaad ku yeelatid maaragtaana istiqaamo ku yeela, ku sugnow. markaa istiqaamada waa maxay? waa toosnaan. ku toosnow. dadkuna diintan inay ku toosnaadaan waxay culimmadu shardi uga dhigan laba shay: qofku inuu iimaan dhaba leeyahay oo iimaankiisu kaamil yahay, iyo inuu haysto maaragtaane mujtamac wanaagsan oo diin ku dhaqmaya inuu haysto qofku. labadaas siyaaba ayaa u dhib yaraynaysa qofka diinta islaamka inuu ku sugnaado una ku dhaqmo. iimaan yaqiin dhaba inaad u leedahay diinta islaamka biqadri alkhawf. hadba intaad ilaahay aad garata eed ilaahay ka baqaysid ayaad amarkiisa ku toosnaan. hadba intaad macluumaad leedahay maaha, macluumaadku waa gooni. hadba inta iimaankaagu iyo yaqiintaadu ay dhisanto ayaad diintana maaragtaanay aanad ku dhaqmi kari, aanad ku toosnaan kari. ogow, haddii iimaankaagu daciifuu yahay, mujtamacaad dhex joogtana uusan mujtamac diini ka muuqata uusan ahayn, diintaada waxay noqonaysaa markaa gallinna dhinac baad jirtaa, markaa gallinba dhinac baad aadi. markaas zamanku hadduu xumaado oo ummaddu ay fasaado, inaad ummad fasaaday oo xumaatay diin aad ku dhex danayn kartaa way adag tahay. inaad diin aad ku dhaqmi kartaa ummad fasaada dhexdeeda way adag tahay. mujtamac wanaagsan wuxuu kugu caawinayaa inaad diintaada wanaagsan aad ku dhaqantaa. mujtamaca liita ee cibaadadiisu liidatee dhaqankiisu uu fogaadayna waa fududahay marka inaad adiguna mujtamaca aad raacdo ay ku qayiraan. ninkii reer bani israa'iil ahaa ee 99 nafgooyey ee yidhi nin caalima oon mas'alo diiniya weydiiye ii tilmaama, nin raahiba ayaa loo tilmaamay. raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh, laakiin aqoontiisa axkaamtu ay yar tahay weeyaan. deedna markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooye, toobad miyaan leehay? markaa buu yidhi may, adigu toobad ma lihid. fa kammala bihi 100 baa layidhi, 100kiibuu isagii kaga dhigo qoortuu ka gooyey. isagii 100 buu kaga dhigay. haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada buuhi, ila raadiyo oo ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda. markaasa fadulla calaa caalimin, nin caalima oo axkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay. laanna caabid kasta caalim maahin baa layidhi, laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa. caalimkuna waa indhaha ummadda weeyaan. ninka caalimkaee faqiihe diinta yaqaana waa indhihii ummaddu ay wax ku arkaysay culummadu. caama hadday culummo weydo, caamadaasi waa caamo indhabeeshe. ogow, waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalabaagadinaysa waa caynkaa ee la kaca ku faydno. laanna caamadu culummada kuma xidhnay, caamadu maanta siyaasiyiintay ku xidhan tahay. siyaasiguna ma aha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisa iyo maskaxdiisu ay furan tahay maaha. waa mid nolosha adduunyada u yaqaanee noloshii aakhirada ka madow isagana. lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima, laanna culummadu waa indhihii ummadda weeyaan. haddaad caalim aad cilaaqo la yeelato, bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa, balladh naxariis. diintaada waxay noqonaysaa diin waasicay noqon. deedna markaasaa nin caalimaad loo tilmaamay. caalimkiibuu u yimiday, mas'alad buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi 100 naf baan dilay, toobad miyaan leeyahay? markaa buu yidhi haa, toobad waad leedahay buu ku yidhi. toobadda iyo adiga
cid in dhex mari kartaa ma jirto toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii 100 nafood haddaad dishay toobadaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ay ansaxdo waxa shuruudeeda kamid ah wadankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xun baa ku nool dadkaasi waa dad mar walba dhiiga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaan qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhaxbaxa buu keenay mujtamacan oo xagee tagaysaa mujtamac wanaagsan baad iyo ku tilmaamaya dhulkaas aad tagaysaa dhul leeyahay meel heblaayo dhulka dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halka ku caabudo dadkaas aad u tagideena ilaahay la caabud buu ku yiri dadkaas danaway sidii buu yeelay ninkii wadankii uu dhiiga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu badilay wadankii uu hijroonay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisa dhexda ku qabato oo dhintay malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul rahma isku qabatay buu nabigu kaleey salaatu wassalaam inakuna sida qofka bini aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jirkiisa ma aragtaan kafanka iyo nacashka iyo qabriga aanu la diyaar garoobayno ayaa qofka ma aragtaan ruuxdiisuna malaa'ikta ayaa u imanaysa hadduu ahlul janna yahayna malaa'ikatul rahma qaadaysa buu nabigu yiri hadduu ahlun naar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa لأن لبدي ملك باسكوي مدو قار waxay leeyihiin waa ahlan naar 100 naf buu qabaayo waa dhagar qab ninkan naar baanu qaadanay ruuxdiisa anaka qaadayna qoladii kale waxay leeyihiin jaa taiban ila Allah azza wa jalla ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keenay ma aragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadaya markaas malak suurad aadamiye ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa taala dana markaas malagii la yiri waxaad mitiraysaa dhulka uu dambiga ku galay iyo dhulka uu hijroonay qiyaas baa lagu yiri dana markaas waxa uu batay dhulku u socday buu markaa ayuu u dhawaaday taaka inta leeg baa la yiri وفي رواية kale wuxuu nabigu yiri ilaahay baa amar ku siiyay dhulku u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa la hadlo lagu yiri adoonkaasi waa toobad keenay u dhawow dana taaka inta leeg buu u dhawaaday taaka inta leeg sidaas markaa malaa'iktii naxariistu ay ku qaadaan oo ahlul janno ku noqdaan la yiri وشرع لمن كان قبلنا بعلماء يرادين ummadihi naga horeeyay toobadooda in la aqbalo waxa loo shardinayay in mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita ee fasaadsan ee dhiiga daadinaya ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin loo alla ka cabsi leh meesha ay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaan shariicadii ummadaha hore kamid ahayd ama inaka shariicadeena toobada culimadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobadu markay adoonkiyo ilaahiisa ka dhaxayso waa saddex weeyaan saddexda hadii laga helo toobadaadu way ansaxaysaa hadii mid laga waayo toobadaadu ansixi mayso ka koobaad waa kii culimadu waxay yiraahdeen dambiga aad ku jirtay waa inaad ka dhaxbaxdaa talabaadna ma aragtaanay dambiga aad sameeynay waa inaad cazimiya go'aan aad la timaado inaad mar labaad dib dambiga aanad ugu noqon ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dambiga aad sameyn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ka nadamootaa saddexda hadii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa saddexda ha shardi hadii mid uu ka maqan yahayna toobadaadi waa naaqis wali weeyaan hadii bani aadan xaqniisi meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimadu sheegeen oo waxay yiraahdeen waa inuu qofku ma aragtaan xaqi bani aadan ee lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiyo weeyaan ama waa inuu cafis ka dalbaa marka ummadihii naga horeeyay toobadooda waxa looga dhigay shuruud inay ka dhaxbaxaan mujtamacan xun ee dhiiga ay ku dhaxdaadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan ba shardi looga dhigay marka waa min asbaab istiqama ala diin qofku inuu diintiisa ku toosnaado oo ku sugnaado labada bay culimadu shard uga dhigaan inuu iimaankaagu kaamil yahay hadduu iimaankaagu kaamil yahay oo yaqiintaadu ay dhab noqoto mujtamac kastood ku dhex jirto ku saameeyni maayo laana qalbigaaga ayaa ka buuxa iimaan iyo alla ka cabsi baa ka buuxa mujtamacu ku saameeyni maayana waxaad noqonaysaa muumin baad noqonaysaa xaalad walba ilaahay aaminsan oo ilaahay amarkiisa ku toosan talabaadna inaad diintaada ku toosnaataay oo ku dhaqantaa waxa sabab u noqon kara waa inaad heshaa mujtamac wanaagsan oo diinta ku dhaqmayo diinta danaynaya anta mujtamaciyadeena ka warana ku dhaxnoolahay sigada diinku dhaqankeedee inta tukatay inta aanan tukan
inta tukata ayaa yar oo inta aanan tukan bay naga badan maanta islaamaha xaafad walba waraysta tuulo walba waraysta magaalo walba qiyaasa dadka tukanaya inta aanan tukan baa ka badan inta tukanaysa iska daa diinku dhaqankeedii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil qofku saaxiibka ciddaad saaxiib ka dhigata diinta uu qaba unbaa diin adigana kuu noqonaysa ee nin walooba ninkaad la saaxiib iska eeg buu rasuulku yidhi bulshadu waa taas bulshad wanaagsan haddaad hesho inaad wanaagsanaataa way suuragali haddii laakiin bulshadda aad ku dhex nooshahay bulshad liidata oo cibaadadu ku yar tahay oo salaadu ku yar tahay oo fisqiga iyo fujuurka iyo macaasidu ku badan tahay haddaad ku dhex nooshahay waxaa suuragala inaad si wada noqoto adiguna marka dambe dadkii soo hijrooday waxaa ka mid ahaa cubaydullah binu jaxshin nin la odhan jiray zaynab binti jaxshin waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii xaas ka mida walaalkeed iyo xaaskiisii uu qabayoo la odhan jiray ramlata binti abi sufyaan ramlata binta ibnata abi sufyaan aabbaheed wuxuu ahaa magaalada maka caaqilka magaalada maka ama suldaanka magaalada maka ayuu ahaa qoyska ugu laandheersan ee magaalada maka ugu tiro badan ee ugu tayada fiicanna way ka dhalatay laakiin inay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ag joogto waxay ka fadishay inay iimaankayga iyo diinteeda ay la hijrooto oy kala hijrooto bilaad al-shirki ay u hijrooto waddan ay iimaankayga iyo diinteeda xor ay ugu haysato halka innaka dadkeennu maanta wadannada muslimiinta ay ka hijroonayaan ay uga hijroonayaan maaragtaan ciyaalka ayaan tacliin la raadsanayaa ciyaalka ayaan caafimaad la raadsanayaa ciyaalka ayaan nabad la raadsanayaa ciyaalka ayaan bariis la raadsanayaa may waxaa diinta islaamka kuma ogolo waddan muslima inaad ilmahaaga ka qaadataa oo waddan gaala aad u doonataa maciishad diinta islaamka kuma ogolo diinta islaamku waxay ogoshahay wadannada maaragtaane gaalada ee iimaankaagiiyo diintaada dhaawacaya inaad kala soo hijrootaa ilmahaaga ood u soo hijrootaa meesha aad isleedahay iimaankaagiiyo diintaada way ku xafidmaysaa inaad timaaday diinta islaamku ku ogoshahay ramlata binta abi sufyaan ninkeedii cubaydullah binu jaxshin bay ayay la hijrootay ilaa iyo ardulxabasha markay yimaadeen malika najaashi baa soo dhoweeyey saxaabada rasuulka afhayeenkooga u hadlaayay wuxuu ahaa jacfar ibni abi aalib radia allaahu canhu deedna boqorkii wuxuu weydiiyey diinta islaamku maxay nebi ciise ka qabtaa waxau ku dul akhriyey suuratu maryam buu ku dul akhriyey ملك النجاشي للما كدادتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في سورة المائدة إلهي جل وعلا واكا كغور رمي حالتي بقر كان النجاشي كتمدي مركي جعفر بن أبي طالب ودوشي سكو أخريي سورة مريم سورة مريم waxay ka waramaysaa ciise ibn maryam bay ka waramaysaa calayhi salaam hooyadii maryam ay ka waramaysaa risaaladii nabi ciise loo dhiibay ka waramaysaa shariicadii nabi ciise loo dhiibay ka waramaysaa anbiyo fara badan bay ka waramaysaa boqorka dushiisa markii suurada lagu akhriyayna lilmada ka daadato ilaahay waa kay noogu sheegay oo quraanka ayay maqlayaan quraanka markay maqlaan indhahooga lilmadu ka hoobanaysaa baa ilaahay yiri garashada ay garteen inuu yahay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu yahay markaasuu yidhi wallaahi kalaamkii nebi muuse afkiisa ka soo baxayey waa tawraad iyo kalaamkii nebiyullaahi ciise bna maryam afkiisa ka soo baxayo injiila iyo qur'aankaasi meel keliya ka soo wada baxeen waa waxyiga ilaahay buu yidhi dhulkaygu waa dhul nabada amni baad ku haysataan cadaalad baad ku helaysaan halkaa iska degay buuhi ku noolaado halkaa ilaahay ku caabuda marka aqal yar bay markaa qoys intii u wada socotayna aqal yar baa la siiyey dhisteen oo cariish bay dhisteen gabadha ramlata binta abi sufyaan radia allaahu canha habeenada ka mida waxay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay
markaasay ku tidhi waryaa waxaan ku manaamay adoo suuraddaadii la bedilay maxaa ka jira sidee wax u jiraan wuxuu yidhi waxaad aragtay waxba kama jiraan ee naga seexa buu ku yidhi haddana habeen labaad bay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay markaa bay ku tidhi warrayadii baa igu soo noqotee see wax u jiraan ii sheeg haddana habeen saddexaad bay ku manaamtay markaabay isagii baa runta sheegoo ku yidhi anu diintaydii waan bedilayoo diinta islaamka waan ka baxo diinta nasaaradaan galay buu ku yidhi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan darro weeyaan waa ayaan darane ninka islaamnimo la soo hijrooday ee maka kala soo hijrooday iimaan iyo islaamnimada inuu badbaadsado ee ardalxabasha markuu yimidana fitnoobay waa nas'al allah alcaafiya ilaahay baan ka magan gallay inuu inankana na fidneeyo mar walba ku ducayso yaa muqallib alquluubi habbit qalbii calaa diinik uu bedelay diintiisii uu ridoobay islaamnimadii buu ka baxay mar hadduu qofku diinta islaamka ilaahay siiyey uu ka baxo diin kaloo xaqu adduunyada jirta ma jirta ogow laa yasmacu bi axadun min haadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuut walam yu'min biladii ursiltu bihi ilaa kaana min asxaabi annaar buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axad ummadda muxamed axad ummaddayda ah ama yahuudi ha ahaada buu nebigu yidhi ama nasraani man ha ahaadee ima maqlo hadduu i maqlo isagoo aniga aanan i rumayn haddii ajasha ku timaadana kaasi naar buu ku dhacay buu rasuulku yidhi diin islaam mar hadday adduunyada timiday wixii adduunka diina islaamnimada horteed jiray oo dhan diinta islaamku iyada masaxday ogow saasoo markaa ninkaas uu ku noqday murtad uu ridoobay isagoo shaarib alkhamriya oo ridoobo murtadoo diinta islaamka ka noqdeen ardulxabashu ku dhintaa la yidhi ramla radiallaahu canha deedna gurigeedii bay markaa iyadoo keligeed habeen madow halka ku seexataa aqal dhexdii waddanka ay timidana dadka ku nool afkooga garani mayso ninkii keliya wehelka ay ka dhiganaysay ee aabbaheed iyo dadkeega iyo ubadkeega iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee wehelka u ahaana uu ka ridoobay intuu ridoobay isagoo shaarib alkhamriya ayuu ardulxabasha ku dhintay baa la yidhi keligeedbay markaa aqal dhex seexataa waxaa taariikhda ku qoran habeennada ka mida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay ummu salama radiallaahu canha oo jamaacadda muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay oy tidhi manaamkaa baan arkay balii cabira markaasay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yidhaahdeen wallaahi garan mayna waxaan u malaynaynaa nin sayid suldaan caaqil boqor waxaa bini'aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sarreeya inuu zawj ku noqoni doono ayaan arrintaasi u malaynaynaa dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabiraynaa bay ku yidhahdeen riyada wanaagsan eed ku manaamtaa ilaahay xaggiisay ka ahaatay buu nebigu yidhi qofka aad isleedahay khayr baa ku tuhmayaabaa loo sheegaa waa wuxuu kugu cabiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawigee naxdinta badan lana taa lama sheega buu nebigu yidhi shayddaan xaggiisay ka ahaato lama sheego waxna kaa qaadi mayso laakiin riyo wanaagsan baad ku riyootay oo farxad leh waxaad jeceshahay wax kaa farxiyey qofka aad isleedahay qofkaas uu kaa khayr badan yahay diintana aqoon buu kaaga leeyahay uu kaa aqoon fiican yahay waana kaa iimaan fiican yahay qofkaasaa loo tagaa manaamkaa baan arkay ii cabir baa la yidhahdaa waxuu kugu cabirana u noqdaa bay culimmadu yidhahdeen riyada xun ee hawaawiga ee naxdinta leh adoo aqal kugu gubtay ama adoo gaadhi kula qallimay ama adoo diyaarad kula dhacday ama adoo aas ka qayb galay ama adigoo buka ama adigoo fool xun riyooyinkaa xunxun lama sheego waayo shayddaan bay ka ahaatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii riyada noocaasee naxdintale markii lagu manaamee lasoo ambabareel la kaco waxaa sunno ah 3 jeer baa qandhuuf yar dhinaca midig baa laga tuufa xagga bidix ayaa naqas yar laga afuufaad acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq deedna markaa jiifka dhinacaad u jiiftayna waa la bedelaa buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam
marka iyadu waxay ku manaamtay dayax dayaxii oo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan markaabay u sheegtay ummu salama radiyallahu anha riyadii waxa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnaa annagu aanan garanaynin ayaa zawj ku noqoni doona baa lagu yidhi yaa u noqday markaa zawj ma taqaanaan nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaa baa ku soo salaamayey salaam baan rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yaree cariishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amree halkaa ka guurso ka mehersaa lagu yidhi deedna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay khaalid ibni saciid ay ku tidhi adiga iga noqonaya bay ku tidhi maaragtaane weligayga adiga iga noqonayo adaa dad igu dhow taadna markaa bay noqotay ummulmu'miniin bay noqotay ummulmu'miniin radia allaahu canha ramlata binta abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiina ayaa nebiga loogu keenay calayhi salaatu wasalaam daadna madiine markay timiday ayuu nebigu dejiyey aabbaheed abaa sufyaan oo markaa gaala oo weli aanan islaamin ayaa magaalada madiine u yimid inuu nebiga la galo sulx iyo heshiis markay nebiga wada hadleen ee ay sulxigii arrimihii laga wada hadlay ayuu istidhi bal inantaadii ramla sii maroo sii buuqo daadna markaabuu aqalkeediibuu galay gogashii nebigeennu ku jiifsanaya markuu yidhi ha ku fadhiisatid gogashii bay ka hor qaaday baa layidhi markaabuu sidaa u eego wuxuu ku yidhi aabbo ma firaashkaa aniga ii qalmin mise anaa firaashka u qalmin buu ku yidhi maxaad iga hoos qaaday markaabay ku tidhi maya aabba firaashkan waa firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku jiibsanayey uma qalantid inaad adigu aad ku fadhiisatid bay ku tidhi waayo adigu nin mushrika oo nijaasa ayaa tahay firaashka nebi maxamedna waa firaash daahira bay ku tidhi iimaanku waa cajiib waa aabbaheedii dhalay islaamnimada markay ay timaaddo diinta islaamku waa inaad garataa ayaa la xidhiidhinayn ayaa wax la siin ayaa wax la siinayn ayaa la jeclaan ayaase la jeclaanayn ayaa xidhiidhka loo jari ayaa xidhiidhka loo dayn waxaasoo dhan diinta islaamkaa ku amraysa alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan alwalaa walbaraa yaase la xidhiidhin ayaase la goyn ramla radia allaahu canha gabarh taariikh labay noqotay markii dambe taariikhdeedu cajiib ay tahay marka diintooday la baxsanayeen siday u badbaadiyaan iimaankooga islaamnimadooda suhayb aruumi radia allaahu canhu ayaa markuu hijroonayey madiinat almunawara nimankii mushrikiintu dhexday u galeen markaasay ku soo baxeen nin maalqabeena buu ahaa suhayb radia allaahu canhu abaa yaxya waxay ku yidhaahdeen suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada maka noogu timiday waxaa dhaqaale eed maanta haysatana magaalada maka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxaad doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid maka dhexdeeda aad ka samaysay inaad madiine la tegtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yidhi waa ku dilaynaa wuxuu yidhi waad idilaysaan laakiin anna waa nidili buuhi anna waxuunbaa niga dili ogaada buuhi dagaalkaan aqaanaa buuhi nin waxaanahay ruumiya leebka sida loo gana ayaan aqaanaa haddaad iddishaan waad iga tiro badan tihiin laakiin anna rag baan galaafan buu ku yidhi haddaad dhaqaalo uun doonaysaan dhaqaalaha anaa ayni siin buu yidhi lacagtaydii oo dhan waa ni siin intaan watanoo gacantaan iniga saari magaalada maka een ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaallayna waa nii tilmaami laakiin dariiqaa ii bannaya buu ku yidhi dariiqaas waayo nebigaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadaydii baa ka daba tegayaa iimaankayga iyo diintayda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diintayda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqaa ii bannaya buu ku yidhi hanmare agtooda diintaa qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh
وهاجاك بيدادين لعقتي بو غعنتا كسارين waa kana qaata magaalada makana madaxweynaha lacag ba igu aasana ka soo faqday buu halkaana kala soo baxa laakiin wadada ay banayay buu ku yiri rasuulkaygii baan u tagay kaleey salaatu wasalaam ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة السعودان هجرة مؤبدة ما هجرة يرو وقت يرو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسو نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل دي بي كتغيان بيروه دي كتغيان تجارة دي بي كتغيان قرابة دي بي كتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي ودن بأوسيي وددي بي أبنيين مركز أوسعدي هل ساعة قدهد أيوها نين غنيو مالقبانة ساعة كدبنا وحون نقضي نين فقير ونقضي سوق فقيرة وقعنتي ساشلين كجرين أيو مقالدي مكة مدينة سوق لي بالليلين يا سودوي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحو نبي كو سودوي ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى بيعك قناعسك هذا إلهي لقى شيء واتكب عايشتي ونبي وكيدي ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنع يا دويد هذه أردنع كلا دورة بيهيد لأن إلهي عز وجل وحو كل هامية صحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بان كدبه تجي فرها يقعد وضدها اي بنيه امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي ندحمري وأتكمع عشتي النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العدي وحي بان نبي الله وشيك وحي ماشي قضيته ay ka dhacayso waa makay u dhaweyd teleefoonadan zamankan aan haysanay aalaadkan aan ku wada itisaalayna sariica ee wixii oo dhan ba adduunyada markiiba u gudbinaya ma haysan laakiin jibriil baa nabiga ku soo dago uga waramaya wa minan naas man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad muuminiinta waxa kamid ah ilaahay leeyahay mid naftiisa iyo xoolihiisa iyo dhaqaalihiisa ku iibsanaya ilaahay ridihiisa wa abaa yahya ayaa kamid ah lagu yiri suhayb ar-rumi baa soo socda oo dhaqaalihiisii ka doortay ilaahay rasuulkiisa inuu raali geliyo ka doortay lacagtu agtooda qiimo ma leh qabiilku agtooda qiimo ma leh dibloomku agtooda qiimo ma leh aqalladoodu agtooda qiimo ma leh dhulkoogu agtooda qiimo ma leh agtooda waxa qiimo leh ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam kana maanta dhallinyaradeennu hadday cadhoodaan waxay ku cadhabaxaan inay ilaahay nabiga aflagaadeeyaan ay diinta aflagaadeeyaan oo malaa'igta aflagaadeeyaan oo miyaanad ogeyn niman qur'aan akhrinaya oo xufaada caydoodii in leeyahay waad ku gaalowdeen munaafiqiinta iska daa diin iyo malaa'ig iyo ilaahay iyo rasuulku afka lagu taagay يا معشر القراء نمنك منافقين تيجي أبا در يا صهيب يا بلال بي أركانو مال فرديا ولي بالسفر بي هاينو غزوة جهاد بي السعودين وارقوا الذين القرآن أخرس بدل له باللغو يري مركا عنتاد اللعوني أنا محاي نقع عن توقوين مركا دقالك الله قالنا محاي نقفوا ليسن أريقا سيكا ورما وأريقا نيمك الصومالي دو اعتراضو هدان علموي عدع موي ciidan ka hadayo xagga qolooyinkayga galbeedka ay dhaadaan hadaan culumoy adcun mooye ciidan ka hadayo maxay ka dhigan tahay hadalka ninka munaafiqa uu yiri ahdigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar al-qurra ururkiinan quraan akhriska badan lahow marka dagaal la galayna maxay iniga fulaysan marka cuntada la cunayna maxay iniga cantuuga weyn ereyga inagu aan leenahay isma tagin يا واستجيب
ereygaa baan la yidhi may waad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen famaa maxaad u malayn markaa ninka ilaaha iyo nebiga afka ku taagayana ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno diintu kaftan ma gasho wamaa huwa bilhasli baa ilaahay yidhi wamaa huwa qur-aanku dheeldheel mu gala dheeldheel ma galo ma aamana bilqur'aani man istaxalla maxaarimahu wixii qur'aanku xarrimay ninka xalaashada ilaahay iyo rasuul iyo qur-aankiisa ma aaminin baa la yidhi qur-aanku muxuu xarrimay qur-aanku beentuu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay gabadhu inay dhar khafiifa intay xidhato magaalada dhex marto qur-aanku uu xarrimay qur-aanku wuxuu xarrimay diinta in lagu dheeldheelo qur-aanku uu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay salaada inay camdan kuu dhaafto qur-aanku uu xarrimay shareecadda islaamku waxay xarrimtay ninka xalaal ka dhigta buu nebigu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankiisa ma aaminin buu yidhi qofkaas ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno natuub ila allah oo diinteennan islaamka han ku toosnaanno asbaabta inaad diinta ku toosnaata ku dhib yaraynaysana waa labadaa shay bay culimmadu leeyihiin aliimaan iimaan dhammaystiran iimaan hadba inta iimaankaagu ziyaaday diintaadu ziyaadi iyo maaragtaane mujtamac wanaagsan mujtamaca wanaagsan maxaa laga wadaa waa bii'adda waa bulshad wanaagsan ciddaad saaxiib ka dhigatid unbaa diintooda adigana aad qaadana ogow laa tusaaxib ilaa muuminan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad cid la saaxiibi qofka muuminka la saaxiib buu nebigu leeyahay gabadha muuminadda ha la saaxiibto wiilka muuminka ha la saaxiibo haddii saaxiibkaagu uu yahay mid muumin oo taqwo leh xagga khayrku kuu jiidiyo ogow walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad wax bixinaysidna waxaa awlaaya inaad siisa ka ilaahay ka baqaya haddaad sadaqad bixinaysid haddaad sakada bixinaysid xataa qaraabadaada haddaad wax siinaysid kuwooga alla kacabsiga la xidhiidhiyo horta wax sii limaada kan ilaahay ka baqaya waxaad siisaa ilaahay daacaddiisu u adeegsan oo wanaaggu u adeegsan haddii aad siisa laakiin kan macaasida iyo qafladda ku jira waxaad siisa ilaahay cisyaankiisu u adeegsan marka mufsidka ha taageerina saalixa ayaa la taageeraa mar walba saalix iyo faasid mufsid iyo muslix dadku waa afartaa qaybood mid waa saalix waa mid isagu wanaagsan keliya bas naftiisa u wanaajiyey dadka kalena waxba kama gelin saalix baa laydhaa kaa waa saalixun linafsihi waa qofka keligii naftiisa wanaagsan wanaajiyey weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyey dadkana wuu hagaajinayaayo wuxuu leeyahay oo khayrka kaale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristuu furayaa ummaddii buu islaaxinayaa qur-aankii buu barayaa gabdhihii buu asturka kala hadlayaa sunnadii nebigu ummadda ugu yeedhayaa masaajidda tacmiirka ugu yeedhayaa waa muslix weeyaan kaa muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadejin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون با إلهي يدي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضو إهلكيقو أيهين كودتك وناقوك كشقاينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شركي أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناق أمد لدح وريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagooga soo dadejin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yidhahdaan waan wanaagsannahay annaku dadka xunna waxba nagama gelin kaas saalixa halaaga soo socda celini maayo macal isagana waa la halaagi markaas saalix iyo muslix faasid iyo mufsid faasidkuna waa ka naftiisa uu fasaadiyey mufsidkuna waa kan ummadda fasaadka la dhex socda balaayada qaylyasa iyo
meelo ayuu dhallinyarada ku kulminayaa, dhallinyaradii iyo gabdhahii wiilashu meelaha ku kulmaan buu samaynayaa. mufsid aalaat alfasaad buu meel walba dhigayaa. marka afartaa qole adduunyada ku nool: saalix, muslix, faasid iyo mufsid. marka muslix waa inaad noqotaa muslix. dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeya hagaagga ummadda. lidaalika madarasadaha jazaahum allahu khayr, macallinka noo yeedhay allah ka jazaa'i siiye, waa asbaabta mujtamaca islaaxinaysa. waxaa ka mida madaarista qur-aanka ka mid a, bal waa ka kow. qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto, qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa, qur-aanku qofka xishoodkuu barayaa, qur-aanku qofka akhlaaqdiisu u dhisayaa. qur-aan haddii madaarista baa layidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay dhahdaan culummadu. qofka madarasad qur'aan lagu dhiganaya meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninka ummadda ka xidhay. laanna jeelashu meel lagu soo islaaxa maaha, meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadii masaajidda weeyaan. in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa, in dadku ay madaarista ku soo xidhmaanna macallimiinta ayaa u sababa. daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya, sida ay qasabadu biyaha ay barkadda ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camiraya. macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhaya maaragtaanay qur'aanka. marka qur'aanka ummaddu islaaxiyaa. haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa, qur'aanka baranaysa, qur'aanka jecel, madaaristu u badanayso, dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa. fajazaahum allahu khayr. macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur'aanka aad dhigaysaan, ha ka daalina, laanna ilaahay baa inaga abaalmarin. in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. qur-aankan ilaahay cizi buu ku siinayaa, dadna ilaahay cizi buu ku siino kor buu ugu qaadayaa, dadna ilaahay isla kitaabkana hoos ilaahay u dhigayaa. dadka qur-aankan bara ee barta ee ku dhaqma ee ummadda ku xakumana ee ka shaqeeya qur-aankana siduu kor u noqon lahaa, qur-aanku kor buu u qaadayaa. dadka qur-aankan intay bartaan gadaal iska dhigee wax kale shareecad, wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana, qur-aanka ayaa la hadhayo naartuu qur-aanku ku tuurayaa. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعل أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها قرآنك وشافع ويان وإرقية إرقدي سنة والله أقبليا. وماحل مصدق والضوض ويان عد الضوضنا دودي سوى الله أقبله والله الرميسان بو نبي يري من جعل أمامه قاده إلى الجنة. قفك قرآنك هرتي سكيلا قرآنك الجنة حق يدو قاضيا. قفك قرآنك حق دب اسكدغنا قرآنك نارتو كتورابو نبي عليه الصلاة والسلام. قرآنك حق هرق اسكدغ معنيه waa maxay imaam ka dhiga quraanka. had baranayso eed ku dhaqmayso eed umad ku dhaqayso eed maaragtaane ku tarbiyadeynaysid waa inuu hada quraan, laana quraanku waa shariicad dhamaystiran oo ilaahay baa noo soo dejiyay. barka ilaahay diinta hay nagu sugo. آمين هذا. لا تكونوا إن معبوا نبي قولي أن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا. هذا المعني سوها حديث. dadka ku yiraahda anu hebelo macaagaan ahay har noqon buu nabi guri. yani qofka qof walba iska raaca, qofka cidii u timaadaba ay kaxaysato har noqon. waa dadka yidhaahda buu nebigu yidhi dadku hadday wanaagsanaadaanna wanaagsanaanay, dee hadday xumaadaanna maaragtaan iyaka umaan ka mid nahay. ha odhan buu nebigu yidhi sidaa ha noqonina kuwa sidaa odhanaya. walaakiin watinuu anfusakum baa nebigu yidhi, naftiinna dariiqa mustaqiimka ku toosiya buu nebigu yidhi. dadku hadday wanaagsanaadaanna la wanaagsanaada, hadday dadku xumaadaanna buu nebigu yidhi ha xumanina buu rasuulku yidhi. laa takuunuu macaagaan ahay anu hebel baan la jiraa, dadkaan la soconnaa, caalamkaan la soconnaa bay ku odhanayaan qaarkood. war caalamka xagguu u socdaa aad la socoto sheekh? caalamkaa lala socdaa. caalamka xagguu u socdaa?
caalamku haawiyuu ku socdaa ha raacin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culammadu warkay kuu sheegayaan raac caalamka waxba kaama gelin caalamku madaxu ku socdaa ilaahay iyo rasuulku waxay ku leeyihiin mijahaaga ku soo soco waad noo imaniye afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahadaa amman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim lugahaaga ku soo soco lagu leeyo kaalay caalamkan la socdaa haddaad tidhaahda waxaad ka dhigan tahay indhali iyo dhegeli ayaan dadka u raacayaa caalamku maanta ma indhaqabee ha ku dayan waa la indhabeelay way dhagabeeleen dadka adduunyada ku nool maanta meel kale u socdaan raacin cid walba ha raacin dhangaagaale ha noqon cid walba iska raaca ilaahay rasuulkiisa kitaabkiiyo sunnadii nebi maxamed raac warka culummadu ay kugu yeedhayaan baaqa culummada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nebiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad mooddaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeela ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo diintana kuwa ku sugnaada ee ku khaatimaysta allah inaga dhigo hada wabillaahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamed